xisbiga wadani ee maanta baxadkan isu soo tubay inay muujiyaan dareenkooda iyo shucuurtooda sidii uu ku baaqay guddoomiyaha xisbiga Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida dhagaha fudud ee aan markiiba uga soo jawaabteen codsigii guddoomiyaha in la isugu soo baxo gobollada dalka oo wacyigelinta lagu kala qaato xarumaha iyo xafiisyadana la isugu yimaado aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa dhammaantiin mudanayaal iyo marwooyin saaka halkan waxaynu isugu nimi inaynu dareenka xisbigeenna muujinno inaynu la qaybsanno guddoomiyaha dareenkiisa iyo madaxda kale ee xisbiga fakarka ay qabaanno aynu halkan ka gudbinno aanaynu cududeenna muujinno iyo caqligeennana ku biirinno wixii tale aynu soo jeedinayna inaynu soo jeedinno halkan maanta waxaa idinku diyaaroo idinkala hadli doonaa awalan xildhibaanadii golaha deegaanka siyaasiyiintii xisbiga iyo maxay tahay maamulkii xisbiga ee gobolka intuba waa idinla hadli doonaan cid walibana waxay idin siin doontaa insha allah waxaynu ku shaqayn doonno iyo waxa hadafkeennu yahay innagu ka xisbi ahaan waxaynu nahay xisbi dhisaya qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaanaynu nahay xisbi ilaalinaya nidaamka iyo kala dambaynta waxaynu nahay xisbi ilaalinaya habka sharciga aynu dhigannay oo diyaarna u ah inay ku tartamaan xisbinimo kuna gudbiyaan fakarkooda saasaanaynu maanta isugu soo baxnay mudanayaal iyo marwooyin hal codsi baan halkan idinka soo jeedinaynaa oo aannu lambar wan idiin sheegaynaa goobtan markaynu ku kala dareerno waxaa loo baahan yahay si asluubaysan oo qurux badan in dadku qun yar iyagoo soconayo siday ku yimaadeen oo kale ah inay goobta uga dareeraan sow islamaynaan qaadan sidaa nabadgelyada somalilan sow diyaaruma nihin horumarkeeda sow diyaaruma nihin waxwadaqabsigeeda sow diyaaruma nihin burxa miyay qaybsan tahay sow bartankii burxa ma joogno dareenkaasaynu muujinaynaa maasajkuna saasaynu ku gudbinaynaa insha allah aad iyo aad ba u mahadsantihiin taa markaan ka imaado waxaynu gudageli doonnaa hadafkaynu halkan isugu nimi ee ay ku saabsanayn maanta kulankeennan lambar wan halkan waxaynu ka cambaaraynaynaa anigoo ku hadlaaya afkayga afka maamulka xisbiga iyo afka taageerayaasha xisbigaba inay xaaraan tahay in layska xidhxidho qof aan maxakamad waaran looga soo goynin oo xisbi qaran hoggaaminaya waanaynu cambaaraynaynaa dhammaan mas-uuliyiinta xidhan ee ugu horreeya xogeeyey xisbigu ee ku xigo afhayaankii xisbigu ee ku xigo maamulkii gobolka awdal oo iyagana la xidhxidhay saxaafadda saaxil oo aani wali caddayn warkaan helayaa waxa weeye guddoomiyihii xisbiga saaxil waa la daba taagan yahay doctor saleebaan oo shiikha nasiib darrada jirta saleebaan wuxuu ahaa shiikh waxaanu ahaa maamulihii haamaha maanta markuu xisbiga waddani ku soo biiray ee joojiyey masaajidkii ilaahay lahaa ee uu dadka khudbadda uga geli jiray waa mushkiladaha dhacay weeye waynu cambaaraynaynaa in diinta islaamka innagoo dhammaantood wada muslimiina in la kala xigsado masaajidada ay xoog ku maamusho xukuumaddeennu waxaanaynu leedahay madaxweyne ka daa sidaa ma aheen waynu la talinaynaa xukuumaddeenna waynu toosinaynaa mucaaradnimadu waa toosin teennu dumin maaha waa toosin war ninka muraayad kuu dhiiba
ee ku yidhaahda halkaa waxbaa kaaga yaalla iska qaad miyuu kula taliyey mise wuu ku xumeeyo qurux darradaadu u jeedaa mise quruxdaadu u jeedaa xisbiga waddani quruxdiisu u jeedaa maamulkeenna iyo xukuumaddeenna madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaynu leenahay ku soo noqo dayrka xaydaamka ee sharciyadda dalka ku soo noqo waxaynu leenahay mudane madaxweyne wadatashiga ku soo noqo waxaynu leenahay isu tanaasulka ku soo noqo waxaynu leenahay cadaaladda ku soo noqo waxaynu leenahay horumarka ku soo noqo waxaynu leenahay wixii somalilan ku soo caanamamaashay madaxweyne ku soo noqo baynu leenahay gaar ah oo loo qabo oo shakhsiyadeed mid qabiil iyo mid kala toona waxaana loo aaminsan yahay inuu yahay madaxweynihii qaranka haddii qoladeeda mucaaradku markaannu hadlayno annagoo cadhaysan magaca madaxweyneaanu ilowno ha u qaadanin madaxweynenimadii lagaa qaaday oo ha xanaaqin madaxweyne lagaama qaadina madaxweynaad tahay cabdiraxmaanno horuu ku yidhi madaxweynaad tahay saakana xusbiga waddani gobolka togdheer dhammaantaya waxaanu ku leenahay madaxweynaad tahay laakiin waxaannu leenahay madaxweyne dalku wuxuu u baahan yahay inaynu isu tanaasulno inaynu isla talino waxaynu maanta ka liidanaynaa haddii aynu sidaynu ku sii soconno aynu ku sii soconno dadkii reer miyiga ahaa ee xilligii sabanu jaahiliga qabaalka isku laayey qabaal ka si waaye wuxuu waa qabaal waana kabatan sidaa runtiia laba xubnood oo ah komishinka qaranka aad u soo xushay biyadiid baa ka yimi xisbigu wuu saluugay saluugu waa jiraa adigaa saluugi jiray madaxweyne cigaal baad saluugtay madaxweyne cabdiraxmaan baad saluugtay madaxweyne riyaalaad saluugtay madaxweyne siiraanyaad saluugtay afartii madaxweyne kaa horreeyaba waad saluugtay siyaasaddooda madaxweyne in siyaasaddaada la saluugaa dembi maaha madaxweyne dadka inaad ku xidhana madaxweyne ma aha xaydaamka madaxweyne ku soo noqo xasan guure xalay wuu kula hadlay waana saaxiibkaa innagu waynu madaxweyne waynu isgaranaynaa dalka wax badan baa loo soo maray dee madaxweyne haddii tii loo soo maray mid ka daran lagala kulmo hadda halkii bay ka baxaysaa ogow iyo meel ka sii liidata halkii iyo meel ka sii liidata ayay ka baxaysaa waxa laga cabanaya siyaad barre lagula dagaalamay waa cadaaladdarro cadaaladdarrada dadku ma qaadi karo laakiin horumar gaabiska waa la qaadi karaa oo haddaad yar gaabiso waa lagu toostoosin karayaa laakiin haddaad cadaaladdarro isla soo taagto dee way isi soo taagaysaa markiiba madaxweyne waxaannu ku leenahay sida runtiia halkan waxaa ka muuqda oo aannu dareen ka bixinaynaa waxyaalo badan oon la qaadan karin hadalladaadii maalintii dhoweyto xafladdii markaad qabatay caafimaadkaaad kaga warramaysay gobolkan togdheeraannu joogno xanuun baa ku habsaday maad soo qaadin xitaa in shaybaadh lagu soo sameeyo baaritaan lagu sameeyo waxaadse u jawaabtay oo aad halkaa kala hadashay weliba khudbadaannaan jeclaysan oo jees ku jiro guddoomiyaha xusbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi sidaa in ragga waaweynu u wada hadlaana madaxweyne ma habboona sida runtiia waxaan leenahay madaxweyne waxaad tidhi somalilan u biqi maayo waa runtaayo u biqi mayno waa xaqiiq weeye laakiin inaad adigu sandaladdaada dhammaysan kari weydo madaxweyne shaki weyn baa saaran iyo calaamad su'aal kii ku doortay iyo kii aan ku dooranba waxba kuu qarin mayno hadallo fara badan baa siyaasiyiin ku jiri waxaa lagaaga warramay cabdiraxmaan axmed inaanu muddaxileedkiisii dhammaysan ee uu 2 sannadood xukunka ku wareejiyey waabeeyo wuxuu soo taxay madaxweyne weliba 2 sannadood wuxuu qabtay sida runtii halkaa uu ka qaadayna waan ka qaaday halkuu dhigayna waan dhigay madaxweyne 2 sannadood saluug badan bay leedahay inaga toosi waa ku ceeb somalilan maanta halkay maraysa madaxweyne waxaan leeyahay
waxay iga dambaynaya rag fara badan oo iga aftahansan iga siyaasisan iga odaysan xogogaalah anigu laakiin hordhicii baan sii jeedinaya dadkaanan doonayaa dee inaan cabbaar sii maaweeliyo waxaan leeyahay madaxweyne arrinku halkuu maanta maraayo ma aha meel soconaysa ma aha sidaana ku sii socon maysa madaxweyneaanu ku leenahay haddaad cabdiraxmaan xafiiskiisa dastuurigaa u diiddo ma waxaad la doonaysaa inuu madaxtooyada kugu qabsado kuugu soo galaabaad doonaysaa ma madaxtooyada inuu isugu soo gallaa dee haddaad xarumaha iyaga nagu qabsato madaxtooyadaa la isugu soo gelaya madaxweyne waxaanu leenahay ma jeclin dalku inuu foodo noqdo nin walba waxaa la yidhi waxa umusha u dana ayaa ilmaha u dana soomaalidu horay uga maamaaday waxa annaga noo dana baa adigana kuu dana madaxweyne dantaa wada ilaashana baan leeyahay adiga ugu sarreeya dabagalaan waxba la weyddiinayn wasiir meel ka hadlay baan waxba la weyddiinayn badho saab hadlay baan waxba la weyddiinayn maayar xashiish loo diray oo haddana xusni maagay baan waxba la weyddiinayn madaxweyne adiga ku saaran tahay soomaaliduna waxay ku maamaadaa laba jir geela oo aad naas u diidday afartaba way kuu diiddaa waa maahmaan soomaaliyada hadda ciyaar ma aha laba jir geel oo aad u diidday naas afartaba way kuu diiddaa waxaan halkan wararkaan helayaa ee xogogaalka ay sheegayaan in guddoomiyihii xusbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi askartii ilaalinaysay amar la siiyey inay xeryahoodii soo galaan taa macnaheedu waxay soo baxaysaa dastuurkii dalka waa la laalay cabdiraxmaanna guddoomiye maaha lamana ilaalin karo amnigiisana mas-uul kama nihin taasina waa inagu ceeb hadda madaxweyne haddaad sidaasi ay dhacdo waannu kuu sheegaynaa cabdiraxmaan cid ilaalisa ma waayin laakiin hadda haybadda askariga dul taagani waa haybad qaran haddaan anigu isdul taagaan ilaaliyo nooc kalay soo baxaysaa baasha waxaynu doonaynaa inaynu xaydaamkeedii ku soo celinno labada xubnooda muranku ka taagan yahay ee halkan maanta halkaa gaadhsiiya somalilan waxaan leenahay haddii madaxweynuhu khaldamay haddii baarlamaanku khaldamay haddii cid kaloo idi jaaysan la waayey hadda idinku inaad go'aan qaadataan xaq ba u leedihiin geesinimo leh in adeerkii cabdirashiid reeraac cabdirashiid maxamed cali injineerka waxaan leenahay nacayb reernimo lagugu diidan yahay ma jiro nacayb shakhsiyadoodoo lagugu diidan yahay ma jiro dhexdhexaadnimadaadii uunbaa la saluugay anigana haddii waddanay soo dirata bal saaca ka warran maxay soo baxaysaa dee waa qayladaa xilka qabanaysa waxaa loo leeya waa arrinkaa doob inaga qabta dee waa ninkii lahaa muuse xilkaa u dhiibinaya saaka waxaan dhagaystay warbixin lagaa soo diyaariyey aad iyo aad baan u daawaday wariyaa soo tafatiray goob kastood ka hadashay hadday coodan la tahay hadday qorlugu tahay hadday shirkaagii ugu dambeeyey jaraa'ideed labadii biloodoo ugu dambeeyey ay tahay ee aad caarro dilka ku xukuntay ee aad maxakamadda noqotay intiiba waa la soo dhigay adigoo madaxweyne sheekh shariif wasiiruhana waa lagu soo daray weliba inaadeer waxaan leeyahay siifigaagii hore nin soomalilaannara baa tahay kuma diidanin siifigaagii hore haddii cambus ku yar jiro waar inaadeer maantuu hagaagayaaye
adigu waddadaa ka baxo somalilan badbaadi waayo madaxweyne siinaayo waxaa lagu majeertaa oo dadku ay aad ugu majeeran jireen 80 cod buu kaga tegey 50 baarlamaankeenna dhacay haddaad ee way ku sii hagaagaysaa inantana sidaa runtiya aad baa xusbigu uga hadlay kaltuun sharaf badan baa loo hayaa waa inaan garan weeye doorashadii dhoweed burcaad nagala shaqaysa kaltuunay sida runtiya wax gaaroo laguu sameeyeyna ma jiro waxaad lagaadoo xusbiga kaaga yimina ma jiro inaadan maanta haddii somalilan ay dhibaata gaadho hadda habluu ragga hadday isku dilaan arrinku wax runtiya waan dheereeyey hadalkii waana fogeeyey qolaha saxaafadduna kollay dawar badan baa meesha yaalla oo siyaasiyiin baa hadlaysa waxaan ku soo afmeerayaa nabadgelyada waynu wada ilaashanaynaa xusbiga waddanina waxay diyaar u yihiin inay galaan doorashadii ka meeraysan maayaan madaxweyne ninkii odaygaha wuxuu dhaha hayla meeraysane ninkaa odaygaana si gaaraha loo sii daayo ninkaa la sii daayo soo maaha xorriyaddiisii ha loo soo celiyo soo maaha madaxda kale xidhxidhana la sii daayo soo maaha cadaaladdu ha shaqaysa soo maaha saxaafadda caburinta ha laga qaada soo maaha sharciga ha loo hoggaansamo soo maaha go'aan geesiniman madaxweynuhu ha qaata soo maaha sow intaa ka dooni mayno miyaynu hubaysannahay ma dagaal baynu wadnaa gobonnimaynu muujinaynaa soo maaha waan madaxweyne adigana waxaa lagaa doonayaa inaad gobonnimada nala qaadato waxaan halkan baaq uga dirayaa culimaa'udiinta ganacsatada odayaasha madaxweynuhu wuxuu yidhi hay yimaadaan bal aanu wada hadallo oo hana eegaan aniga iyo xusbiga waddani farriintaasi waa idii timi laakiin madaxweyne waxaan leeyahay jawaab waxay u bixin kari waayeen odayaashii caarre kuu barye faraha badnaa ee aad diiday waa lagugu soo hiili waaye ee dabci baasha waa la baqay madaxweyne oo nin kastaaba wuxuu sidhi yaanay karaamada kaa qaadin maanta haddaad dib u baryootan tagto oo sidiina xilsiqari lagu diido iyo odayaashii waaweynaa ee sida muggala u hadlay nin kastaa wuu baqo kuwii burcaan la hadlay waxayna waarar maa nala diidaayo karaamadaanu weynaa ilayna sheekh cismaan nuur baa waxaa laga sheegay ibril waxay yidhaahdeen baa layidhi iyadoon lama gaadhin xilligii xirka ayay yidhaahdeen roobdoon shiikh kaalay noo akhri war wuxuu waar karaamada haynaga qaadina ibril aynu gaadhnay marka karaamaday ilaashanayaan odayaashu mar horay kuu soo gurman lahaayeen faysalle habeenkii dhawayto kollay wuu kula soo hadlay oo isaguna wax badan muu sheegin inaad diidday iyo inaad yeeshay kollay wuu kugu soo noqonayaa waxaan malaynayaa madaxweyne arrinka dhulka dhig guddoomiyaha xusbiga waddanina waannu ku taageersannahay horumarkaannu kugu taageersannahay tanaasulkaannu kugu taageersannahay wixii aad samayso oo dhan baannu guddoomiye kugula soconnaa bartaa ka hay ha ugala soo dhaqaaqin hana xumayn arrinka adigana saasaannu kugula talinaynaa aad iyo aad baanu idiin salaamaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dib kala baxa dib شاكرو وارتب يرى الله كلا بحو واحد يرتب الله كلا بحو هذا الكل نقول فلان دول كنا نقول فلان يرتب الله شاكرو والمدرسة عسكرتها لو كان سمو nabadgelyada ha la ilaaliyo dhallinyarada xaggaa u dareertay xagga askarta tuban ha soo noqdaan xaydaamka ha ku soo noqdaan marka khudbaddu dhammaato qof walowba si habsamiya baad u soconaysaa cid kasta oo rabash samaysa askartu waxay amran tahay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan waddanina ma aha waddani qofka rabshad sameeya warsabsaa ma aha qofka wax shiidaa waddani ma aha qofka wax boobaa waddani ma aha tuugga inagu soo dhex dhuuntay waddani ma aha dadka cid rabishtaatay waddani ma aha askarta nin la dagaalama waddani ma aha saasaannu leenahay way soconaysaa iminkana waxaan ku soo dhowaynaynaa siyaasi maxamed cabdulaahi halac casodhow maxamed cabdi halac
وبين السعير على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين. waxaynu jecel lahay marka la hadlayo in buuqa la yareeyo oo wax la dhageysto haddii kale dee waxba lama faa'iidin. Somaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato, Somaliland ha noolaato. cadowga Somaliland ha jabo, cadowga Somaliland ha la waayo, cadowga Somaliland cagta hoosteeda alla ha geliyo. xisbiga wadani ha noolaado. kolley dee hadalkuna waa badan yahay, dadkuna waa badan yahay, laga bogan maayo. waxaynu u baahanahay laba kelmadood eryar baan anigu baxayaa. waxaan ku horeynayaa shacbiga, weliba reer burcaan ku sii horeynayaa la hadlayaa. burco waxbay ahaan jirtay, waa lagu dayan jiray. maskaxda Somaliland burcay fadhiyi jirtay. ragga Somaliland wax u qabta ee u hiiliya ee liidarka ee halgamay ee wax hogaamin jiray ee weliba Somaliland manfacoodu ka baxsanaa inta Soomaaliga laga hadlaba uu gaaray halkan bay ku dhalan jireen burco. maanta waa laynagu qoslaa. waxaa laynoo yaqaanaa dad hadhay. waxaa burco loo yaqaanaa maahmaah lagu sheekaysto. waxaa burco loo yaqaanaa dad aan maskax lahayn. waxaa burco loo yaqaanaa dad badow ah. waxaa burco loo yaqaanaa dad qasuulayaal oo rabshadwalayaal ah. dadka halkaa tuban iyo dadka siiba dhallinyarada ah ee ama qaybsan ama rabshada wada ama qaska wada, raggii aan sheegayay ee liidarkiska ahaa dadkii uu dhalay ee ka tegay weeye. ama waa ubadkay dhaleen kuwii laftoodu, ama adeer bay u yihiin, ama abti bay u yihiin, ama awow bay u yihiin. cidaan soo gelin ma jirto. faamili ballaaran weeye dadkani oo batay, waa hal faamili weeye. waxaan leeyahay burcoy magacaagii soo cesho. generationka maanta joogaa wuu ka dhacay kaalintii burco ku jiri jirtay ee dadkan ku jiri jiray. miyaa jeceshiin in laydinku maahmaaho? miyaa jeceshiin dad cawaana oo badowa oo qabyaalad badan oo dadka ka dambeeya oo qaybsan in laydinku tilmaamo oo wax shiida oo wax laaya? waxaan leenahay magaceenni aan soo ceshanno, magacuudana ka dhimanna. isu soo bax macnihiisu waa maxay? laba macnuu isu soo baxu sheegaa, laba macnuu ka turjumaa, macno saddexaad male, laba macnaa lagu sheegaa. waxa weeye mid wuxuu sheegayaa marka maamulkaaga ama dowladdaada ama gobolkaaga ama degmadaada wanaag ka dhaco in lagu taageero oo la muujiyo oo moral support la siiyo oo la hambalyeeyo oo wanaaggaa laga mahad celiyo, laga mahadnaqa. midka labaadna waxa weeye midkaa ka hor jeeda marka maamulka ama sistamka ama hoggaankaaga uu wax qaldo, waxa aad tabatay inaad ku sheegataa inaad diidan tahay oo aad leedahay maya sidaa maaha, ha laga bedelo, ha laga duuro, halkaa ha laga baydho. ma aha in wax lagu dhaco, ma aha in wax lagu laayo, ma aha in wax lagu jajabiyo, ma aha in masaakiinta waxeeda lagu boobo, ma aha isu soo baxu in lagu dumiyo hantida oo lagu boobo masaakiinta iyo ummaddu leedahay. saani ma u maqlaysaan hadalkaa? ma aha in adigoo doonaya wanaag ama inaad wanaag dalbato ama inaad wanaag taageerto in xumaan loo bedelo. maaha
looma baahna in lagu dhibo cid isu soo baxa waxa weeye labadaa tilmaamood keliya ayuu leeyahay oo lagu tilmaamo isu soo baxo waxaynu nahay waryaana qaylada inaga daaye war hadalkaa la yareeyo waxaynu u baahan nahay sistamka inoo dhisan in la ilaaliyo oo cid waliba ilaaliso oo shacbigu ilaaliyo oo dawladdu ilaaliso oo maamul kasta oo meel jooga inuu ilaaliyo adduunyadu waxay inoo qirtay maxaa tabatee waa maxay buuq maxaad sistem baa inoo dhisan sistamka caalamka oo dhan baa inagu hiiliyey oo inagu ambaliyeeyey oo inagu taageeray dowladnimadeennu ma dhammaystiraa dowladdii 26 juun 1960 aynu qaadannay meel allaale meel ay jirto iyo meel ay inaga xigto ma naqaano 30 sannadood ee u dambeeyey ama 29 dowladdeennii oo halkaa taalla oo aan cidinayna ku haysan ayaynu bogan kari weyne hoggaankii isbeddelay ee ka soo taliyey waddanka eed badan buu leeyahay meel waxaynayna ka xigaan oreada halka goobtanaan taaganaa ugu buuq badan meesha manadaan baa jiraya haddii halka buuq waxaan leeyahay shacbiga somalilandow shacbiga reer burcow dowladnimada ma naqaano dowladda hoggaankeedana waxbaa ka dhiman oo ma yaqaano mid maanta jooga iyo mid horeba shacbiguna ma yaqaan waxba lama barin dowladnimada looma sheegin waxa xaq loogu leeyahay ma yaqaanin waxa ay xaq u leeyihiin waxay ahayd in la baro waxaynu bilaabi doonnaa inaynu isbarno oo shacbiga loo sheego shacbiga in loo sheego waxa uu dowladnimada xaq ugu leeyahay iyo waxa iyaga xaq loogu leeyahay shacbigu ma aha in uu diido ama dumiyo nidaam iyo sistem jira oo dhisan iyada oo in ay dumiyaan oo haddii allayaa foodo la abuuro oo dowladnimo jirta dusha lagaga boodoo laga furo loo baahna iyaguna waxay u baahan yihiin oo xaq u leeyihiin oo xuquuqdu tahay in la ilaaliyo wax allaala wixii ay u baahan yihiin ee leeyihiin ee dowladnimo iyo maamul xaq loogu leeyahay haddii qolo waliba garan weydo shaqadeedii oo shacbigu aanu aqoon waxa uu xaq u leeyahay oo sheegan karaynin ee uu wax kala doono ama ka hadlo waxa weeyaan dowladduna aanay dadka xaqiisii ay dulmido oo fuusho oo qaybiso oo la qarribo dee sistem jiri maayo dowladna ahaan mayso waxaynu u baahannahay inaynu wixii aynu xaq u leenahayna garanno waxa xaq laynoogu leeyahayna garanno dowladda somalilan dhaliil badan bay leedahay xalay nin baan maqlayay golaha dowladda maamuladii hore ku jiri jiro wasiir ahay oo halgamayaashii oo oday ah maxamed xaashib uu ahaa hadalkiisa waxaa ku jirtay reer wadani madaxweynaha yidhaahdaan waxaannu leenahay madaxweyne horena waanuu nidhi guddoomiyaha xisbigu horuu uga hadlay guddoomiyihii halka ka hadlayay imkee gobolka ka hadlay madaxweynaha laguma haysto madaxweynenimadiisa halkaa maxaa ka jira halkaa askari tag ka dhex bax dadka waryaa goobtaada tagaad xaq u leeday
waxaan la hadlayaa maxamed waxaan la hadlayaa dadkan hadlaye hadday noqdaan golaha dhexe hadday noqdaan odayaasha gobolka hadday noqdaan saraakiisha xisbiga qof waliba wuxuu leeyahay 2 minit dad badan oo xisbiga ku miyiga taagan dabadeenna waqtiga taageerayaashu halkay joogaanna waa xidhiidhi waa inoo soo diray askariga oo bixila jooga waa inoo soo diray askariga war jooji askari roojka jooji war taageerayaasha la hadlayaa joojiya shiidka waryaa joojiya allahu akbar war waa inoo soo diray daayo jooga istajiya dhalinyaro istajiya idinkaan idin hadlayaa iladaa mas-uuliyadda gobol kale burcalayla ka mas-uula istajiya waa guryahoodhiye qof la soo diray oo la adeegsanayo oo dirayska qaranka ka been sheegaya yaynaan maqlin istajiya askari ka tirsan ciidamada booliiska ayaa goobta soo gaadhay askariga ayaa dadweynihiisa aad uga cadhoodeen kadib markuu ay isku dhaceen mid ka mida taageerayaasha xisbiga hadda xafladdiisi kooban ayaa hakadu galay ciidamadii booliiska iyo dadkiiba waxay isku dayeen in nabadda la ilaaliyo وأنا نسمع حقا على سنتوس حقا waryae askartu amnigay sugaysaa dadkiina waan waxaan idiin sheegayaa taageerayaasha dhammaantiin waxaan u sheegayaa qofka dhagax tuura askartu xaq bay u leedahay inay tallaabo ka qaato askartu way ilaalinaysaa wax laga sheego wadda askartu waryaale may maqlaysaan askarta gacan ha la siiyo qofka wax tuura gacantaa laga geliyo baa leeyahay soo ismaqli mayno qofka wax tuuraya askarta u dhiibay naga maahe waa dadda soo diray may maqlaysaan kusoo nagla xaytaanka markaleen ku wada hadlayna qof askartu dhinacay doonta istaagaysa meeshaysi soo taagaysa stage ka iman karta cidna hadli kartaa ma jirta askarta may maqlaysaan askartu amnigeena ilaalinaysaa xumaan uma iman askarta hala nabad geliyo hana lala shaqeeyo gacanna ha la siiyo saasaan idin leeyahay haddaa wax maqlaysaan sawmaydaan niman inaa xisbiga taageertaan sawmaydaan niman taageerada xisbiga joojiya dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka iyo joojiya dhallinyarada halkaa wajaadayada joogta ha istaagto qof waliba halkiisa ha istaago waxaan kaga baxayaa anigu sheekada mala way igu yar badato waa igu dheeraada waqtigooda waxaan leeyahay dawladdu markay waajibka ay leedahay gudato ee ay dalka waayeen iyo hoggaan u noqoto ee shuruucdiisa ay ku dhaqanto markaasaa dawlad wanaagsan ay noqonay dadkuna oggolaanaya waxaan leeyahay dawladdu ha joojiso sharciyada ay ku tumanayso waxay noo dhisan sistamkaasi hadduu inaga dumo waxaynu gelaynaa ta ay ku jiraan qolada reer soomaaliya oo kale innaga awal bacdiinama taageerayn innagaa dhisannay waxaa haddaynu iska duminno waxaa dawladday haddaynu duminno iyo madaxweynuhu ninna noqon maayo madaxweyne ninna mas-uul noqon maayo indhaha faraa la yska gelinayaa ha la joojiyo shuruucda lagu tumanayo ee dalka golayaashu ha joojiyaan madaxweynuhu ha joojiyo hay-adaha kale ha joojiyaan cid waliba ha joojiso ha lagu soo noqdo sistamkii iyo sharcigii inoo dhisnaa ee adduunyaduna ku taageertay ee adduunkuna ku ammaanay ee adduunkuuna ku siiyey wax ee adduunyadu waxaynaga dhiman oo dawladdeennoo kaamil ah ay inoo ku soo siday ورد الله
فلونا ديو بحوري أنا أحمق لسان وقت غير سوكو بينا إيار أين ستراسلو إيار أين قالوا الله عنه ويا صدح من روحي انت قدام بيا إذن كنت القاطع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا أشرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان تاgeerayaasha xisbiga wadaniga halka isugu yimid aad iyo aad baan u salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh xisbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ahayd dawlad yar oo urdina oo caalamka oo dhan sidaa uga horeysa oo sidaa u wadhigaysa madaxweynayaashii hore ay meel wanaagsan soo gaarsiiyeen waxaynu qarka u saarayn in layna aqoonsado oo caalamka oo dhan shirarka caalamiga ah oo dhan baynu ka qayb gali jirnay meel walba baynu ka qayb gali jirnay Soomaaliland nabad iyo dimuqraadiyad bay ku naaloon jirtay gees ilaa ka gees wadaniyada iyo Soomaalilandnimadu qof walba qalbigiisa ay fadhiday maanta waxaynu ka liidanaa Hirshabeelle waynu ka liidanaa maanta Hirshabeelle waynu ka liidanaa taana waxa keenay nidaamka maanta haysta ee fadhiya ayaa keenay hal xaraani ninig xalaal ma dhasho waxba yaan la isu qarin hal xaraani ninig xalaal ma dhasho markii hore xaraan ku yimid kana xaraantii baa inagu qarqarhaysa waana dambigeeni weeye hal toobad keeno dadku ha toobad keenaan labada gole ee golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida laba xaraamood bay noqdeen tuug iyo tuukalkaal bay noqdeen kalsoonidii wax lagala noqdo waxaan shacabka ku boorinayaa in kalsoonida lagala noqdo oo maanta kadib aanay noo fadhiin kuwaasi maanta kadib aanay noo fadhiin 30 sanadood iyo 40 sanadood bay noo fadhiyaan kordhiyaan ku kordhiye weeye hebelii siidaan hebel ku siidaaye weeye arrimaha intoodii badnayd gudoomiyihii iga horeeyay baa sheegay sidii uu sheegay baan ku raacsanahay waxaan leeyahay wadankan tacab badan baa ku baxay qiimo badan buu inoogu fadhiyaa geesiyaal baa ku dhintay rag baa u godgalay rag maanta ugu qiimo badnaa wadankan oo raggan maanta fadhiya aanay meesha yimaadeen hadday nool yihiin ayaa u godgalay ma aqbalayno in lagu kibro in nabadda lagu kibro ma aqbalayno in wadanka lagu kibro ma aqbalayno in laba nin maalin wadankoo dhan loo cuna qabateeyo dooni mayno oo la yidhaah xoog baan ku marinaynaa باور أبيوس ما دونينو باور أبيوس عوادي مركي لقبصة ضيبة قلدان لو استعماليا ما أقبلينو وكوكعينا وحبان نسكعينينا وحبان نسكعينيا وكوكعينا والله ما أقبلينا يا بالله ما أقبلينا ما دونينو ما أقبلينا والله كوي سياد برها لقا أقبلي واي كي ديارتها يا دبابات كوتيبها لقا أقبلي واي ما أنت نين كبير ودنك كحكم تريا مترو نين كيس سعانيسا مترو عدالة شقينيسا عدالة يدوغا أيها شقينيا شرعيا شقينيا دولة تتكسر هي وإسكا شقيساني ووحو دورة سمين كلا مترو فوق القانون مترو عد فوق القانون نين والبشرعيا كسر هي ودن كوانو يراشانينا نين قودا كيالي مينو إنو ودن كوكبرو ووحو دورة سمين إلا شكي سانو تاغني madaxweyne waa tooko kuma haysano waa lagu doortay laakiin hanala soo oodmina wadanka si waxaan u hogaami hanala soo oodmin waa soo oodantay madaxtooyadii baa dhaafi weyday maalin walba malcaamad la furaya iyo iskuul baad ku meeraysanaysaa wadanka ictiraafu dooni maysa ictiraafu doon madaxweyne wadanka ictiraafu doon maayarku ma qabto shaqadaad hayso maayarkii shaqadii maayarkaad haysaa madaxweynena waa lagu doortay caalamka marba meel ka deg wadankan ictiraafu raadi horumaru raadi wax walba raadi laguma dhigin laguma door wixii lagu doortay maad garan wixii lagu doortay madaxweyne meeshii aad ku ordaysan weeye waa meeshii laga kari waayay yay kula soo oodmin sidii raggii hore u shaqeynayay u shaqee sidii siilaanyayna riyaalay u shaqeynayeen u shaqee
waddanku halkeennuu gaadhay horay uga sii dhaqaaji laakiin intii yaraydee raggu ku soo tabcay kala firdhin oo ha baabi'in oo maalin walba yay jeeri go'ayn oo maalin walba yay jabhadi samaysmin haddaad damiir leed adiga iska tegi lahaye assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu la soo gaabiyo idinkuna samra allahu akbar marka ugu horraysa waxaan idinka mahad celinayaa taageerayaasha xisbiga haddii aad tihiin sida sharafta leh ee aad u ajiibteen dhawaaqii guddoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan waxaan idin leeyahay waad ku mahadsan tihiin waxa weeyaan isku soo baxu waxa weeyaan qodob dastuuri ah oo waxa weeyaan dastuurka aynu 97% ugu codaynay ayaa inoo waajibiyay inay dadku dareenkooda cabiri karaan oo ay ku cabiri karaan hadal isku soo bax qoraal iyo aragti labadaba waxa aan idin leeyahay ujeedada aynu halkan maanta iskugu soo baxnay waxa weeyaan inaynu dareenkeenna u gudbino xukuumadda maanta jirta iyo caalamkaba qodobkaas weeye waxa weeyaan wax dambi ah aynu inagu maanta wadnaa ma jiro qodob dastuuri ah ayaynu maanta halkan ku nimi waanaad ku mahadsantihiin sida aa u timaadeen intaa kadib waxa aan fariin u dirayaa booliiska waxaanu leenahay waxaanu idinkala shaqaynaynaa nabadda waxaad tihiin astaan qaran haddaad tihiin booliiska saddex xisbi qaran waa u dhaxaysaan waxay ogaataan inaad tihiin astaan qaran oo u dhaxaysa saddex xisbi qaran waxaanu idinka mahadnaqaynaa booliiska burco gaar ahaan uga mahadnaqayaa sida sharafta leh ee ay sameeyeen ee ka duwan sidii booliiska Hargeysa oo xarunta u qabsaday taas baan uga mahad celinaynaa waxa weeyaan waxa nabadgelyadu cid walba waa u dan saddex xisbi qaran nabadgelyada ka wada shaqeeyo waa dastuuri hase yeeshee dareenka inuu dadku muujiyo cid u diidi kartaa ma jirto waxa weeyaan waanu cambaaraynaynaa wixii shalay Hargeysa ka dhacay aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa waxaanu cambaaraynaynaa madaxdii xisbiga ee la xidhay waxaanu kale oo aanu cambaaraynaynaa komishanka sida xaaraanta ah labada xubnood sida xaaraanta madaxweynuhu ugu daray komishanka ee uu qaska u galay caalamka ee uu doorashada in dib ugu dhigayo madaxweynaha waxaanu u sheegaynaa inaan marnaba la aqbalahayn labada xubnood ee xaaraanta ah inaan marnaba la aqbalayn ayuu xisbiga wadani cadaynaya oo aanan doorasho ku galahayn waxa aanu kale u sheegaynaa madaxweynaha markii aad mucaaradka ahayd wixii aad samaysay anagu ma samaynayno annagu waxba burburin mayno annagu shaani tuuri mayno laakiin waxa weeyaan dastuurku wuxuu noo ogol yahay un baanu nagu qabanaynaa oo ah isku soo bax salmi ah waxa aanu idin leenahay taageerayaasha xisbiga marka aynu halkan ka dareerno si nabadgelyo ah qof waliba halkii uu ka yimaha ugu noqdo booliiska ha lala shaqeeyo waa mahadsantii iminkana maxamuud dagalaab xildhibaan golaha deegaanka soo dhaweeye soo dhawo xildhibaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaynu ka muujinaynaa shucuurteena ayaynu ka muujinaynaa waxaan idiin sheegaynaa madaxweynaha haddii uu leeyahay ha la yidhaah madaxweyne ee malaa horaa looga hadlo cabdiraxmaan uga hadlaye haddii aanu aaminsanayn waxaanu leenahay qaxayo tiibi baanu kugu dhaaranayna inaad madaxweyne tahay ee dalka si wacan u maamul dalka si wacan u maamul oo doon wixii lagu igmaday doon wasiiradii iyo dawladdii iyo madaxweynihii waxay ku mashquuleen xusbiyada mucaaridka inay u jawaabaan ayay ku mashquuleen loomana baahnayn inay gudaheenna ku mashquulaan waxa loo baahnaayoo loo doortay inay debadda dhaqaale iyo shaqaale iyo ictiraaf iyo hawlgal iyo xidhiidh caalamka ay noo sameeyaan baa loo doortay looma dooran inay ku mashquulaan wasiir weliba wasaaraddiisu warmahayo madaxtooyaduu tagaa waxaa la odhanayaa hebel baa hadlay wasiir hebela waa reerkiinna u jawaab wasiir waliba reerkooduu jawaabaya ma aha wasiir reer waa wasiir qaran ummad baa laguu dhaariyey kitaab jaamaca gacanta laguu saaray barnaamijkaa laguu diray
ee ahaa inaad dalka u shaqaysiiya dadka ayaa lagaa doonaya madaxweynehana waxaannu leenahay madaxweyne dee si kalaanu nahna garan maynee waxaa lagaa doonaya inaad dalka iyo dadka u shaqayso ma suuro gelayso goob walba madaxweynaha waxa laga doonaya shir jaraa'id inuu qabto laakiinse xafladda uu tagaba wuxuu ka hadlayaa garnaqsi madaxweyne markaad tahdo ila garnaqsada ee mar walba taa jidbixiyaanahay iyo waana loo garnaqaya oo madaxweynuhu ayaa ku xukumaya adiga haddaad khaldan tahay ta la isweydiinaya waa taa dee markaa cidinkula naqsan mayso in cidinkula garnaqsato dee ma suuro gelayso ilaa adigaba wixii oo dhan ahe dhammaan adiga ah markaa waxaan leenahay madaxweyne iyo adaa layla garnaqso adiga mooyaa laguma arag kelmaddaa iska daa oo ha u noqoni jaamacad baad ka hadlaysaa hebel iyo hebel baad ka hadlaysaa jaamacadda dadka ku hor taagan caafimaad baa laga hadlaya xusbi mucaaradaad ka hadlaysa waxaa lagaa doonaya inaad ka hadasho dadka ku hor taagan waxa khuseeya inaad ka hadashaa baa lagaa doonaya laakiinse garnaqsi iyo canaan iyo xusbi mucaarada laguma xafladdu ma aha dadka ku hor taagane oryaniska ah waxa khuseeya ka hadal wax kale ha ka hadli ma garanayno golka fuulkan khaldan ee aad isticmaalayso waxaan leenahay dadka xidhan waa sharci darro qofku wuxuu dembiilo noqdaa marka maxkamad la geeyo wax ku caddaada mana jirto afhayeen xusbi oo hadlay oo yidhi soo baxa balqoodhiin iyo xeeradiin iyadoo la taagan yahay oo la leeyahay dadku ay yimaadaan xafiiska si loo wada hadlo ayaa waxa loo beddelay waa mudaharaad tee maaha mudaharaad waa khalad turjumaad khaladaa dadka la siiyey markii afhayeen ku hadlayna waa la xelay waxaan leenahay dawladdu waxaan macno lahayn yaani ku absaamini dantii ummadda ha u noqoto oo ha doonto oo ha hagaajiso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan kalaan ku soo dhowaynayaa maxamed afyare soo dhowo axmed afyare loo kala tegi maayo maanta bismi illaahi raxmaan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم dadweynaha xisbiga wadani inta ay xidhan yihiin madaxdeena mudaharaadka miyaynu daynaa kubishiga xaaraanta intay joogaan miyaynu daynaa mudaharaadka madaxweynaha waxaanu u sheegaynaa hadduu xafiiska xusbi maalin dambe dhagax ku shubo inaannu 5 kun oo iskurraga madaxtooyada ku shubi doonaanana haddii xarunteenna guud lagu shubo dhagax dambe saw madaxtooyada kuma shubno dhagaxinana saw koona walba kagama shubno saw 100 kun oo iskurraga ma haysanno haddii sharcigu shaqayn wayaanana waannu shaqayn doonnaa madaxweynaha waxaanu leenahay shaqadaada qabso dalka ka daa rabshadda xuduudiyaha ka shaqee ummadda ka shaqee rabshada ka shaqaynin waxaan ku soo gabagabeeyay dadku wuu badan yahay Soomaaliland ha noolaato cadaaladdu ha sarrayso waddani ha noolaado wabilaahi tawfiiq weli ma dhowo wax yar iminkana waxaan ku soo dhowaynayaa siyaasi cabdilaahi bismillaahi raxmaani raxiim halka waa arkaysaan dadka waxa lagu yidhi shacabku waxay wadaan qas iyo abaabul waa adinkaas waa arkaysaan reer barisaale bay u fadhiyaan daltoodii bay arkayaan dalkay rajo ka qaba madaxweynuhu wuxuu ahaan jiray sharaf buu lahaan jiray karaam buu lahaan jiray dadkiisuu ilaashan jiray xaqa ayuu ku hadli jiray maanta madaxweynayntii midda kuma hayno war soomaa waxa weeyaan maanta dalku halkuu marayo ilaa maalintii maanta laga bilaabo dalku dib uu socday war soomaa dib baynu u socday waxa weeyaan dalka iyo 2 xubnood oo la doortaa oo madaxweynuhu jeclaadaa waxa ka weyn dalka oo uu jeclaado war miyaanay ahayn waxa weeyaan madaxweyne waxaanu kuu sheegaynaa Somaliland maanta halka ay marayso abidkeed bay gaadhin haddii sharcigu shaqayn waayo oo kala dambayntu shaqayn weydo oo military la isu adeegsado oo la isu cajuguleeyo bannaankaaynu isku soo baxaynaa bannaanka waxa weeyaan
haddii waddani runta kuu sheegaya haddii jeegaani runta kuu sheegi weyday waddani baa runta kuu sheegaya jeegaanina waa bil saddex baa layidhi waa bil saddexna gurigaaga way kaa kaxaysaa guri keena kuma geyso waar miyayna geysay waxa weeyaan sharcigu ha shaqeeyo ciidamada ha laga qaado dadka cadaaladda ha lagu soo noqdo ha la iskaraabeeyo dalka ha la ilaashado wassalaamu calaykum waayo iminkana waxaan ku soo dhowaynayaa xogayaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar waar waddanka ma badbaadinaa waar somaliland ma badbaadinaa waar muuse ma ka badbaadinaa waar maxamed kaahin ma ka badbaadinaa waar somaliland ma badbaadinaa diyaar mawtiin waar inta barqad xidhaya miyaynu kala dareernaa waar inta xogii xidhaya miyaynu kala dareernaa waar miyaynu kala dareernaa inta xusbigeenna maalin walba la dafirayo waar muuse miyaynu madaxweyne naanaanta sharciga ka maqanyay miyaynu madaxweyne nidhaahnaa markuu sharciga ku soo noqdaynu odhaynaa madaxweyne markuu baarlamaanka xaaraanta aynaga kala diro ayaynu odhaynaa madaxweyne maanta odhan mayno madaxweyne umama qalmo allahu akbar allahu akbar muuse waa ila meerayso ee maaha madaxweyne siduu dhaqmayo waar wuxuu rasaaseeye cabdiraxmaan tuur waar waxaynu ogay shaanigiis ilaayo waar waxaynu ogay wuxuu tuuri jiray waar ma maantuu leeyahay isu soo bixinaa hadlina waar ma sharciga isaga qabtaa ayaa innagana ila qabtaa markii shaanida tuuree lagu xidhi waayey ayuu hadal lagu xidhayaa waar duma horaynaa hadduu saad damco sharciga ma ku soo celinaa allahu akbar iminkana waxaan ku soo dhowaynayaa inantii gobolka faysa qaybtiid allahu akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبه نستعين على النور والدين ودونه لما وحن سلام يا تاجر حسبك والدني صوت ضمن تاجر يا سلام يا سلام الإسلام كيان سلام يا سلام كذب منصبيه يا دولة كلمية وحين وشينا هل كأي كم نيسا أي كبرابة أي كولان فرتوهم دولك وشينا حسبك والدني إنه يسقط دولك بدابين أيوه إنه هالكيف محافظ كوكتير ترى يسقط كتيره إنه عارف إنه موسى يهي إنه موسى أو عارف بكذا راسنا إنه مدحوينا يهي أي إنه شينا دولك والدني باب بدابين أيه دولك عبد الرحمن باب بدابين أيه وحنو شينا مصبيحي مدحوينا ما واتهاي مدحوي مصبيحي أما حرام كفو أما حرام كفو دولك هذا مدحوينا كم عارض كان هذا مدحوينا كم حافظ كان هذا مدحوينا لكن كان حسب قاتلي حريتي يا حفيز كيسي يوكشرين ما إنه رح طيارة لقوقو ساقرات دوريسي صوتك وفنا عبد الرحمن دلك عبد الرحمن وفنا حمام لها دادية أدوك والله قرويدي انت تغانين وين دافتي والله ببريقتي والله يا بنتي موسو فهاش اسكدي بخور الله عنه وادي كريميسي انت تاتقانا والله قرانيا والله يجيب دورات كفيني ذاتك اللي قوقيو عبد الرحمن دلك يوديبه ايات كفيني ساسات كفيني اسنم باد شيغتا صدح كن او مقايس او اسنم كما بدنا دادك جوغا انت لغو قايهين يا انت قبلو قايهين يا انت والن يا انت قدار هذا فردها واسلم waxaad garan weynaado asalaam ku magacaabno dalkii maanta maamulaya intaad gaar u saarto oo xarun u jeexdo waa qoomi asalaamde oo maamul oo maxay hada waxsi oo diiwaan gali ayaan garan weyday ragii ka sarafta badnaayo kuwii ka magacaabanda iyo kuwii dalkan aad ku naanayso kubadda ku ciyaarayso kuwii gacanta ku dhigay agoomahoodii iyo maxay taageerayaashoodii ayaa lugahay wax wada gaayihiin oo wada meexnaabaya marka muusow dalka waxna laga weydiinaaye wadani baa dalka badbaadinaya cabdiraxmaan baa badbaadinaya labadii sannadoodna intaa taqaanay way dhaaftay iminkana waad ku wareeraysay dalka cabdiraxmaan ku wareeji baanu ku leenahay nagu waaye iminkana abwaan baan ku soo dhowaynayaa laba kalmadood in odhanaya saxabka u garaaca Abu Sidiiq
waxaan isu taagay inaan sheego madaxweynaha wixii ka dayacmay dhacdooyinkii magaranaysa wixii ka dayacmay magaranaysa tixda yada gadagaa waxaa la yidhaahaa damba muuse kama laha damba muuse kama laha ayaa la yidhahaa gadaga codkii waddanka ka soo baxay berigii dhaweeda doorashadii madaxweynaha waxaa ku soo baxay hal madaxweyne baa la sameeyey halkii madaxweynena isagaa ilaahay ka dhigay ma safahansana moogti markaa tixdeereed baan bilaabaya tixdeer waxaa la yidhahaa wixii aa u dirateen dalku maanta siduu yahay doorashada fadhiidka ah taadiintii qarannimo damba muuse kama laha damba hantidii dadweynaha deg deg boobka uu dhacay dekedii siday tahay tirka adhigii lagu rarayna damba muuse kama laha dakhalkan gaadaylaantii dembigantaani u galay ciidankii la kala diray warshangaliydaa yidhi na damba muuse kama laha dagaalkan ceelaf wen yaal duqii meesha kaga tegey ka abaabay dawgii dayacaya maatana damba muuse kama laha reer hebeshan doodaa dalka reefaskaa galay nayntigii dib loo degey na damba muuse kama laha in diintii la weeraray in diintii la weeraray dalka buugga laga helay dayacaya maatada damba muuse kama laha dulduulkan yaro jira iyo jabadaan dilaacaya dembigii axsanaadana inay kahayn baa dilo damba muuse aaduu mahadsan yahay abwaanku weli waynu isu samraynaa iminkana waxaan ku soo dhowaynayaa cabdi sugaal oo ah guddoomiyaha dhallinyarada gobolka xisbiga allahu akbar somalilan ha noolaato xisbiga waddani ha guulaysto waxaan halkan maxaan dhahdaa u sheegayaa taageerayaasha xisbiga waddani inaynu mar walba ammaanka ilaashanno inaynu inagu dhaqaaqno inaynu nabadda ka shaqayno muuse iyo maxamed kaahinna waxaan leeyahay maxaan dhahdaa dulmidiidow dulmidoon ha isku noqon waxaan leeyahay waynu dul qaadanaynaa way tegayaan muuse iyo maxamed kaahin iyo xukuumadda kulmiyena shalay toole waa ogeydeen waxay samaynaysee maanta waxba aan samaynin oga dul qaadan mayna waxaanu doonnaan samaynaynaa taa marka la yimaado waxaan leenahay taageerayaasha xisbiga waddani marka ay xafladdu dhammaato nin weliba gurigiisii caadi ha u tago ha iska ilaaliyo wixii qasa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waay laba kelmadood horta waa markii koobaada la xidho xogayo guud oo xisbille iyo somalilan leedahay waa markii koobaadee afhayeen la xidho hadday sidan ku sii socoto dee somalilan jeelashu inaanay qaadeen baan u malaynayaa dadku dantooda way garanayaan dhammaanteen haddaynu nahay gobolka togdheer ammaanka aynu ilaalinno waxba iminka inoona hadhin waxaan ku soo dhowaynayaa iminka hodan xaashi oo aynu ku soo gabagabayn doonno inoo soo codmeeri doonta saxabkeenna ku soo dhowo markaa bismillaahi raxmaani raxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga saakana waanu soo noqonnay subax walbana waa la soo noqonayaa cadaaladda intaanu helayno ku luntay madaxtooyada iyo golayaasha agteeda hadday god ku dhacdaanu ka soo saarayno waanu soconaynaa halgankana jooji mayno habeen iyo maalin waanu u guuraynaynaa halkay ku jirtaba caburin dooni mayno cadaadad dooni mayno cagajuglayn dooni mayno madaxda la xidhxidhaya dooni mayno diktaatoori keligii taliyaa dooni mayno bilays cusub jananka cusub ee imika la soo doortay isagaan weli sistamkii iyo maaragtay baranin hawshii lagu amraya inuu madaxda xidhxidho waxaanu leenahay dib u joogso waanu taageersanna qaranka iyo booliska iyo meel walbo ay joogto ciidanka bilayska somalilanba waxaanu leenahay dib u joogsada amar baa iskaga xidhaysaan dadka eega waa walaaladiin dadku waa isku wada mid xusbiyadu waa isku mid cabdiraxmaan maxamed cabdilaahina waxaan leeyahay halgan ka adag halkaa ka hay muuse wuu tegaya madaxweyne annagaa ku haysana haddanu haweenka nahay raggii iga horreeya waxay yidhahdeen madaxweynenu ku ogollay annagu uma ogolin annagaa kursiga saarnay haddana annagaa ka ridayna xukun milatari baan waddanu haweenkan somalilan nahay inta cadaaladda doonaysa ayaanu kaga qabsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay
iska firi baan ku qornay waayo gudoomiyaha inuu ku soo dhaweynaa imikana oo fariinta u dambeeyay سيادة صاحبتي واي ما اسمع لنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمعنا هنولاتو وتاني هقول استو حق الله ينوافجيو وحلنا هاي وإنو يسو شيغينا وإنو يسفرينا وإنو كورا شغينا ما دام aynu bacadkaasi soo taagnay hawsheena aynu dhamaysanay wixii aynu doonaynay inaynu qabsoomeen nabadgelyadeena aynu ilaashanay inaynu intaynoo hadday dhammaystirana diyaar mawtiin intaynoo haddaynan diyaar mawtiin cududii xisbigu way muuqataa xilliga xisbigu idiin baahdo ee arrin kaloo ka sii weynu soo kordhana waa laydiin yeedhayaa soo ballan maaha soo diyaar uma tiidin saacad kastoo laydiin yeedho waa imanaysaan sidaa maaha maanta qof waliba gurigaagii baad qabanaysaa ciidamada biliiska waynu la shaqaynaynaa qofka wax tuura ama wax taabta innaga maaha kaynaxaayo loo jawaabi maayo toos baynu u kala soconaynaa aad iyo aad ba umahadsantihiin u soo saaray asiwa suga esti nazar sarde أمانك الله يلاشد يحسنوني كل دمباينتا أمان بستجيا إذا ما يالك عناية مركز كل العليا أنا غنى